diyaaradii madaxweyne xasan sheekh maxamuud geysay garoonka diyaaradaha sayid maxamed cabdulla xasan ee Kismaayo waxay ku baakiman tahay garoonkaas waxaana suurtagal ah in saacado kadib madaxweynuhu uu soo duulo uu soo baxo wafdigii Kenya ka socday diyaaradii sidee iyaduna baakin ay ku jirtaa saacad ama 2 saac kadibna iyaguna waa ay duuli doonaan oo waa bixi doonaan Kismaayo waxa ku hori doona madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoowe wax wada hadal oo heshiis rasmi ah oo la gaaray ilaa iyo hadda ma jirto dhinacyaduna iskuma aysan fahmin arrimaha kala duwan ee laga wada hadlay laakiin madaxweyne xasan sheekh waxa uu keenay arinta doorashadii Axmed Madoowe uu qabsaday inuu kansalo guud ahaan laakiin waa uu diiday Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoowe saakay mar kale ayaa wada hadallada dib loo bilaabay maadaama kuwii xalay ay fashilmeen garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayona madaxweyne xasan sheekh iyo ciidamadiisa ayaa jooga ciidamada ayaa halkaas goobjoog ah saacadaas oo aadan madaxweynaha Soomaaliya xasan sheekh maxamuud galinka dambe ee maanta ay soo bixi doonaan kuwa Kenyana galinka dambe ka hor waliba duhuradii ay dib ugu laaban doonaan Kenya xaalku hadda waa uu cakirin yahay lama saadaalin karo sidoo wax noqon karo waxaana laga yaabaa in dhinacyadu ay soo saaraan qoraalo iska caadi ah yaani qoraalo ah in madaxa laga dadbaday in wada hadaladii ay fashilmeen waxaana la dhihi doonaa oo kaliya wada hadaladu ay sii socon doonaan ama waxa la soo saari doonaa war saxaafadeed dhinacyadu aysan ku qanacsaneen khilaaf ku dhaxeeya madaxweyne xasan sheekh iyo Axmed Madoowe wili waa meesheeda uu taagan yahay mas'uuliyiintuna iskuma aysan fahmin xaaladda iyo waxyaabaha ay ka hadlayaan runtii madaxweyne xasan sheekh Kismaayo tagay isla maantana uu soo laabanaya isagoo wax heshiisa wax wada hadal ah faraha aan ku heen Axmed Madoowena sidii hore uu doonayba xaaladiisa iyo sidiisa iyo Jubbaland tiisa iska sii hogaamin doona waad ku maasantahay daawashada muuqaalka like saaro si share garay maasan